Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Daawadayaal soo dhowaada, soo dhowaada, soo dhowaada. Waxaan mar kale idinku soo dhoweynaa war degdeg oo haatan soo gaaray ayaa waxa uu sheegaya in maxkamadda ICJ oo 10 sano ka badan dhegta loo taagahay xilliga uu kala bixi doono muranka Kenya ay gelisay dhulbadeedkan. maxkamadda ICJ ayaa waxay go'aan ku gaartay in dhulbadeedkaasi lagu muransan yahay oo ay Kenya muranka gelisay inay leedahay Soomaaliya ayaa awalba dhulkaasi ay lahayd haatan iyaga ayaa mar labaad dib loogu xukmiyay hase yeeshee Kenya waxay madaxa ka gelgelaysaa qoomamana ka taagan tahay qarashaadkii iyo dadaaladii kaga baxay boobka dhulka iyo badda Soomaaliyeed. Kenya waxaan leeyahay haddii dhulkaasi maanta lagaaga aamusay aad haysatid ayaad nasiib leedahay, isna kaaga aamusimayno mar baan kaaga daba imaan doonaa. Ha yeeshee aan u soo laabto badda. Kenya waxay badda wareer ay gelisay oo dood gelisay 2009kii waxaase ku mahadsan dowlad baarlamaankii ka dhiidhiyay memorandum of understanding heshiiskii loogu magacdaray afgaradkaasi baarlamaanka wuu laalay wuuna diiday. aad ayaan ugu mahad celinayna waxa kaliya taariikhda u galay 20 sano ee dowladda isdabamaraysa ee dowladaha isdababedelayay waxa kaliya ee guush ah ay gaareen oo lagu ammaani karo baarlamaanada soo maray waxaa ka mid ah inay laaleen oo ay diideen uguna magacdareen dhaxal dhowr ciwaankaas ayaa loo bixiyay magacaas ayaa loo bixiyay waana la laalay oo la diiday afgaradkii Kenya lala soo galay. ha yeeshee Kenya waxay hoosta ka waday makri ay maleegaysay iyo khiyaano ay rabtay inay dhulbadeedkaasi ku qaadato. waxaase ku mahadsan dowladii xigtay ee Xasan Sheikh Maxamuud madaxweyne Xasan Sheikh Maxamuud ee keysay maxkamadda Hague dadaal dheerna ku bixisay wax walbo iyo si walbo la isugu dayayna ka biyadiiday inay in yar u libidsato ay u calool jilcanaato ama u dabacsanaato si dhulbadeedkaasi loo duudsiyo ummadda Soomaaliyeed. aad baan ugu mahad celinaynaa madaxweyne Xasan Sheikh madaxa harraab ayaan leenahay. waxaase sidoo kale iyana aan doorkooda la ilaawi karin siyaasiyiintii ka dambeysay kuwa maanta hadda jira iyo ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogaan sida ay ugu dhiidhiyeen hadday yihiin siyaasiyiin iyo shacabba waxay aad ugu dhiidhiyeen waxa kaliya ee la dhihi karo hal dhinac ayaa looga soo wada jeestay waa diidmada aan ka wada muujinay in dhulka Soomaaliyeed iyo badda Soomaaliyeed boob lagu qaato. diidnay maxkamadiina maanta go'aankii waxa ay gaartay una hiilisay una soo celisay dhulkeedii badeed ee la dudsin rabay Soomaaliya. waxaan rajaynayaa ummadii Soomaaliyeed in ay sidaasi isugu duubnaadaan. waad aragtaa hadda dadka meeshaan taagan dhammaan waxay ka kala yimideen wadamo kala duwan hadday tahay Faransiiska hadduu yahay Belgium Luxembourg iyo Netherlands gudaheeda qaar baa weliba ka yimiday Ingiriiska aad u fog Denmark qaar baa ka yimid Sweden qaar baa ka yimid marka waxa ay u wada imaadeen waxay ahaa iyadoo weliba marxaladda hadda lagu jiro ee aadka u adag safarkana aad u adag yahay COVID-19 ka jira dartiisa waxay isugu imaadeen isuguna duuban yihiin soo dhicinta dhulka Soomaaliyeed ee maqnaa badda Soomaaliyeed ee la geliyay muranka. maanta baddanadi waa haysanaa waxaan naga maqan meelayo kale insha Allah iyagana markaan Itaaliya la noon cagaheena isku taagna ayaan u soo jeesan doonaa Soomaaliya toosoo isku soo noqonaynaa kadib markii ay wafdiga halka yimaadaan waxaan wareysan doonaa dadka Soomaaliyeed oo dhan halkan isugu yimid insha Allah taala muddo kooban ayaan isku soo noqon doonaa anagoo si wanaagsan markaasi aan u soo tabin doonaa guusha inta yara xalafta hayra dhaxtaalana hadduu shishay waa la socon doonaa markuu si jira ay qaban doonaa laakiin waa isku soo noqonaynaa daqiiqadeena kadib toos nala socda. Assalaamu calaykum.